madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wada qorshe isku shaandheyna dhanka hay'adaha ammaanka. Warar aan helnay ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh uu la yimid laba qorshe uu ku doonayo in dowladdiisa ay ku howlgasho. Jenaraal Odawa ayaa ka mid ah saraakiisha ay la soo diristay isku shaandheynta uu wada madaxweyne xasan sheekh, iyadoo lagu eedeeyay in Jenaraal Odawa uu amray in ciidanka xoogga dalka ay dib uga soo laabtaan magaalada Wabxo, taasoo ay dib u qabsadeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Jenaraal Odawa ayaa isku difaacay dhankiisa in ciidanka xoogga dalka qaybta danab ay Wabxo u aadeen howlgallo qorshaysan, iyadoo isla markaana aysan ugu jirin taagtikada dagaalkooda in ay qabsadaan magaalooyin kadibna ay ku nagaadaan. Waxaa sidoo kale wararku sheegayaan in taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya taliye Xijaar uu ka mid yahay saraakiisha beddelka lagu sameyn doono. Sida aan wararka ku helnay, madaxweyne xasan sheekh iyo wasiirka koowaad ayaa diyaariyay qorshe ay kula dagaalamayaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyo xisbiyada mucaaradka, iyadoo dhowaan la filayo in golaha wasiirada uu u gudbiyo golaha shacabka hindise sharciyeed ka kooban 9 qodob oo ay dowladdu madaxweyne xasan sheekh ku howlgalayso. Laba ka mid ah sharcigaasi kuwaas oo kale ah la dagaalanka Al-Shabaab iyo mid lagu yareynayo mooshinada golaha shacabka, kadib markii ay dhowaan soo baxeen warar sheegaya in ay wadaan xildhibaano ka tirsan mucaaradka mooshin ka dhan ah hoggaanka sare ee golaha shacabka iyo xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Sharciga cunaqabateynta dhaqaalaha ayaa ah qorshaha ay dowladdu ku doonayso inay hal dhagax ku disho 2 shimbir. Midda koowaad ayaa ah inay kala dagaalamaan kooxda argagixisada Al-Shabaab xagga dhaqaalaha, iyadoo sharcigan uu siinayo awood ay kula socdaan dhaqaalaha bangiyada iyo lacagaha waddanka soo gala. Tan labaad, maadaama ay ku kacayso lacag badan mooshinada golaha shacabka, sharcigan waxa uu u sahlayaa dowladda inay la socoto shakhsiyaadka wada mooshinka iyo lacagtooda, taasoo ay u sahlanaanayso in la xayiro, iyadoo isla markaana lagu eedeyn karo in shakhsigaasi uu u waday lacagtaasi kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Dadka gorfeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in sharcigan uu leeyahay khatartiisa, iyadoo uu u sahlayo in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku beegsan karto siyaasiyiinta ka aragtida duwan.